muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago lacagtii 2000 oo madaxweyne Trump uu ballan qaaday in shacabka Mareykanka la siin doono. Sheekadaasi waa isku dhamaatay maxaa yeelay dawladdu waxa ay bilowday in ay dib lacagtii taarifka ee shirkadaha soo dhoofsaday alaabta intii madaxweyne Trump lacagaha canshuuraha uu ku soo rogay wadamada caalamka ayaa dawladdu shalay waxa ay bilowday in dadkii ay dib ugu celiso. haddaba lacagtaasi maxay dhan tahay? waan ognahay in maxkamadda sare dhamaadkii bishii labaad ay ku tilmaantay canshuurtaasi ama taarifkaasi madaxweynuhu wadamada caalamka ku soo rogay inay tahay mid sharci darro ah, loogana baahnaa Kongareeska in uu ogolaansho ka helo. haddaba arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa, qaabka ay shirkadaha lacagahaasi dawladda uga codsan karaan iyo sidoo kalena kalsoonida ay shacabka Mareykanku ku qabaan madaxweyne Trump oo meeshii ugu hooseysay gaartay, halka sidoo kalena dagaalka uu kula jiro wadanka Iran qaabka uu u maamulayo ay inta badan shacabka Mareykanku ay ka soo horjeedaan. Trump waxa uu leeyahay Iran wada hadal ayaa noo socda, laakiin Iran arrintaasi waa ay diidaysaa, waxayna Iran ay leedahay haddii dagaalku uu mar kale dib u bilowdo waxyaabo la yaab leh ayaa la arki doonaa. Trump oo sidoo kalena Iran ugu baaqaya haween la sheegay in Iran ay doonayso in ay daldasho in aysan daldalin, uu leeyahay arrintaasi waa inaad ka baaqsataan. dagaalka dhinaca gobolada Mareykanka ee labada xisbi ee Republikaanka iyo Dimuqraadiyiinta u dhaxeeya oo ku salaysan xildhibaanada gobol kasta laga soo doorto oo dib u qaabeyn ay ku wadaan degmooyinka goboladaasi oo weli socda. gobolka Virginia maanta doorasho ayaa ka dhacaysa, waxay doonayaan Dimuqraadiyiintu 4 kursi inay ka qaataan Republikaanka. madaxweyne Trumpna sidoo kale bartiisa Truth Socialka shacabka gobolka Virginia waxa ugu baaqay inay maya ugu codeeyaan arrintaasi. sidoo kale waan idin la wadaagaya, balse marka hore soo dhawaada. madaxweyne Trump in canshuuro uu ku soo rogay wadamada caalamka, canshuuro taarifa oo alaabaha Mareykanka loo soo dhoofiyay oo shirkaduhu ay u soo dhoofsadaan labadii bishii Abriil ee sanadkii 2025 ee dhamaaday ayuuna canshuurahaasi ku soo rogay. marka shirkado ayaa dacwado ka gudbiyay, waxaa ka mid ahaa shirkadda Casco, waxaa ka mid ahaa FedEx iyo weliba shirkado badan ayaa arrintaasi dacwado ka gudbiyay. sidaas darteed maxkamadda sare ayaa la isla gaaray 20kii bishii labaad ee February ee sanadkan. waxaan ognahay in maxkamadda sare 9keeda garsoore 6 ka mid ah ay arrintaasi ku tilmaameen sharci darro oo yiraahdeen madaxweyne Trump waxaa looga baahnaa in ogolaansho uu ka helo Kongareeska markii canshuurahan uu ku soo rogayay, awoodna uma lahan in wadamada caalamka canshuurahaasi uu ku soo rogo. 3 garsoore Trump ay arrintan ku raaceen, waxayna kala ahaayeen Clarence Thomas, Samuel Alito iyo Brett Kavanaugh oo Trump uu magacaabay 4tiisii sano ee hore ee wadanka uu madaxweynaha ka ahaa. 6 garsoore ee diiday canshuurahana waxay kala ahaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts, Neil Gorsuch oo weliba Trump uu magacaabay, Amy Coney Barrett oo Trump uu magacaabay, Ketanji Brown Jackson oo Biden uu magacaabay, Sonia Sotomayor iyo weliba Elena Kagan oo Obama iyo Bush ay kala magacaabeen. sidaas darteed marka maxkamadda sare meel ka sareysa mala oo loo laabto. dawladdu marka waxa ay ku qasban tahay shirkadihii alaabaha Mareykanka u soo dhoofsanayay intii u dhaxaysay 2 Abriil ee sanadkii 2025 ilaa iyo markii maxkamadda sare ay diiday in lacagahoodii dib loogu celiyo. lacagahaasi waxa la leeyahay 166 bilyan ilaa iyo 175 bilyan ayay u dhaxayaan, weliba dulsaar ayaa korayay oo interest ah. marka shalay Isniintii ayaa dawladdu waxa ay samaysay website ay shirkadahaasi lacagihii taarifka laga qaaday ay ka soo codsan karaan si dawladdu ay dib ugu celiso. marka waxa website-kaasi sameeyay hay'adda CBP-da, maxaa yeelay canshuurahan waxaa qaada ciidamada xuduudaha ee customs-ka jooga, haddii ay dekadaha ahaan lahaayeen, haddii xuduudaha dhinaca dhulka ay ahaan lahaayeen iyo haddii aeroboorada ahaan lahaayeenba. sidaas darteed marka online-ka ayaa shirkad waliba waxa ay ka soo codsanaysaa lacagihii laga qaaday in dib loogu celiyo. website-kaasna CBP-da ayaa samaysay. markaasi kadib shirkaduhu kolley rasiidyadii ayay haystaan, marka waa inay soo bandhigaan caddaynta lacagahaasi ay dawladda siiyeen oo taarifka ama canshuuraha. marka website-kaasi ay ka soo codsadaan in lacagahaasi ay helaan waxay qaadanaysaa 60 ilaa iyo 90 maalmood. marka waa 2 bilood ilaa iyo 3 bilood gudahood ayay qaadanaysaa. marka shakhsiyaad ma ahan, waa shirkadaha waxa soo codsanaya lacagahaasi. marka hadda waxa ay qaar ka mid ah shirkadihii ay leeyihiin marka website-kiiba lama geli karo oo mararka qaar error ayuu ku tusaya, wuxuu ku leeyahay mar kale dib ugu soo laabo, maxaa yeelay dadka
maxaa yeelay dadka lacagahaasi dalbanaya ayaa aad u fara badan ilaa iyo 56,000 in ka badan oo ganacsiyo ayaa iska diiwaan geliyey ilaa iyo 9kii bisha oo axadii ahayd marka shalay ayaa website-ku uu hawada galay marka hay'adda CBB hadda waxay leedahay waa xalinaynaa cilada dhinaca website-ka ka taagan maxaa yeelay dadkaasi waxay doonayaan mid waliba lacagahoodii inuu helo hadda shirkadda UBS ayaa iyaduna waxay tiri markaan dawladda lacagahaasi ka helno waxaa jirtay in dadka lagu kordhiyay lacagaha shippingka alaabta ay dalbanayaan dadkii dib ayaan ugu celin doonaa lacaga dheeraad ah laga qaaday shippingka ayay UBS leedahay marka laga helo aan dawladda ka helno lacagihii ay horey nooga qaaday sidaan idin sheegay FedEx iyo Casco ayaa ka mid ahaa shirkadaha maamulka madaxweyne Trump dacweeyay marka arrintaas waxay meesha ka saaraysaa marka lacagtii $2,000 ahayd ee madaxweyne Trump uu yiri lacagahan taarifka ayaan ka bixinayaa oo shacabka Mareykanka gaar ahaan qoysaska low income-ka amaba guud ahaanba shacabka Mareykanka ayaan siinaya marka maadaama lacagihii dawladdu ay ku tashanaysay ee hadda dib ugu celinayso shirkadihii ay ka qaaday macnaheedu waxay tahay lacag shacabka la siinayo oo $2,000 ah ma jirto sababtoo ah dawladdu ayadaaba hadda kaambiyaale ku jirto lacag 166 bilyan ilaa 175 bilyan u dhaxaysa ayay waxay dib ugu celinaysaa shirkadihii ay ka qaaday maadaama maxkamadda sare ay sharci darro ku tilmaantay taarifka oo madaxweynaha canshuuraha uu ku soo rogay wadamadaasi caalamka madaxweynuhu waxa uu adeegsaday sharciga la yiraahdo International and Emergency Economic Protection Act ayiba loo soo gaabiyay ayuu madaxweynuhu adeegsaday arrintaasina maxkamadda sare waxay tiri waa sharci darro marka sida muuqata madaxweyne Trump hadda maamulkiisu lacagahaasi dhammaanba shirkadihii laga qaaday ayaa dib loogu celinaya walow hadda shirkaduhu ay leeyihiin website-kii dawladdu ay samaysay maba la geli karaba maxaa yeelay dadka adeegsanaya oo doonaya inay dalbadaan lacagahoodii in dawladdu ay dib ugu soo celiso ayaa aad u fara badan dhinaca kale xabajoojintii Iiraan iyo Mareykanka u dhaxaysay waa ay sii dhamaanaysaa saacado yar ayaa ka harsan Trump waxa uu leeyahay wada xaajood ayaan Iiraan kula jirnaa Iiraanna waxay leedahay inaga go'aankeena inaan wafdi u dirin magaalada Islamabad ee caasimadda waddanka Pakistan wali waxba ma aysan iska bedelin marka Trump cid uu la hadlayo kullay manogin isaga miya isla hadlaya arrintaasi waa la ogaan doonaa madaxweyne Trump saaka bartiisa Truth Socialka waxa uu ku soo qoray hogaamiyaasha Iiraan oo dhawaan wada xaajood la yeelanaya wakiiladeyda waxaan aad uga mahad celin doonaa haddii ay soo daayaan haweenkan 8 ah oo idin muuqda ayaa waxa la leeyahay dawladda Iiraan waxa ay doonaysaa in ay daldasho oo ay disho sidaas darteed waxa uu leeyahay waxaan aad ugu farxi lahaa haddii 8daasi haweenka ay soo dayn lahaayeen waxaan hubaa ayuu yiri in ay arrintaasi qadarin doonaan haddii dawladda Iiraan ay arrintaasi samayso waxaan idinka codsanayaa ayuu leeyahay in aadan waxyeeleenin haweenkaasi maxaa yeelay arrintaasi waxay bilow fiican u noqon lahayd wada hadalladeena marka Trump uu soo sheergareeyay qofkan ayaa soo qoray markii hore qoraalkan iyo sawirada haweenka soo galiyay madaxweyne Trumpna intuu soo sheergareeyay ayuu sidoo kale waxa uu soo raaciyay qoraalkan oo dawladda Iiraan uga codsanayo haweenkaasi inaysan daldalin oo ay soo dayaan kullay haweenkan ma waxa lagu haystaa arrintii xijaabka ay iska tuureen mudaharaadyadii dadkii loo qabtay faahfaahin dheeraada sidoo kale laga mahayo Trump sidoo kale waxa uu leeyahay Iiraan dhowr jeer ay xabajoojintii ku xadgudubtay Iiraanna sidoo kale waa tii Mareykanka arrintaasi ku eedeynaysay oo aan shalay ka hadlay laakiin dawladda Iiraan waxay leedahay labadii toddobaad ee xabajoojinta waanba isdiyaarinay waxaana la arki doonaa waxyaabo la yaab leh haddii dagaalku mar kale uu dib u bilowdo marka Iiraanna sidaas si kale ay leedahay oo waa diyaarsanahay ay leedahay sidoo kalena waxaa jirta in ay leeyihiin inaga xaggeena wax isbedel ah ma jiraan oo wax wafdi ah ma aanan u dirin magaalada Islamabad ee caasimadda waddanka Pakistan haddana nooma qorshaysno inaan mar kale aan dirno wafdi marka haddana arbacada oo maalinta berri ah ay xabajoojintii ku egtahay marka labada dhinac mid waliba wuxuu leeyahay qoriga xabaddu ay noo raacsan tahay reeshadana waan haynaa inaan ridno oo kaliya ayaa dhiman Trumpna waa kii hanjabay oo dhahaya mar kale buundooyinkii iyo goobihii korontada ayaan dhulka la simayaa oo ilbaxnimo fara badan ayaa meesha ka saaraya taasi oo ah dambiye dagaal oo madaxweynuhu si cad uu u sheeganayo dhinaca kale kalsoonida shacabka Mareykanku ay u hayaan madaxweyne Trump ayaa meeshii ugu hooseysay gaartay 37% shacabka Mareykanka ayaa hadda waxa ay ogol yihiin madaxweynuhu qaabka uu waddanka uu u maamulayo marka waa meeshii ugu hooseysay oo ogolaashaha ama taageerada shacabka Mareykanka ee madaxweynaha ay gaarto bishii December ee sanadkii hore dhamaadkiisii 42% ayay ahayd marka shacabka Mareykanka 3 meelood marka loo qaybiyo 2 kamidana waxay ka soo horjeedaan qaabka madaxweynuhu u maamulayo dagaalka uu kula jiro Iiraan
oo ay leeyihiin kuma qanacsan qaabka madaxweynuhu uu u maamulayo dagaalkaasi sida muuqata marka kalsoonida shacabku aad ayay u liidataa dhinaca kale waxaan ognahay xisbiga Republikaanku cabsi weyn ayay ka qabaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dhamaadka sanadkan bisha November dhacaya in labada aqal looga guuleysto marka waa kuwii bilaabay in gobolada Republikaanka ah ay xubnihii Congress-ka gaar ahaan aqalka wakiilada ay ku lahaayeen dimuqraadiyiinta in meesha laga saaro oo dib u qaabeyn lagu sameeyo redistricting degmooyinka goboladaasi si looga soo doorto xubno Republikaana Texas ayaa bilaabay California ayaa ku xigsatay gobolkan Indiana oo ku noolahay waa kuwii diiday hadda gobolka Virginia shacabkiisa ayaa maanta codeynaya sida aragtaan labadan sawir ee kala duwan waxa ay kala muujinayaan sidii hore ee looga soo doorin jiray labada xisbi ee Republikaanka iyo Dimuqraadiyiinta gobolka Virginia iyo qaabka cusub oo Dimuqraadiyiintu hadda ay soo jeediyeen markii hore red ayaad aragtaan ilaa iyo 5 degmo laakiin hadda blue ayaa ku badan oo hal degmo oo kaliya oo degmada sagaalaad ah ayaa Republican ah marka waxa muuqanaysa in hadda degmooyinka kala ah 6aad 5aad 1aad iyo 2aad ay Dimuqraadiyiintu oo doonayaan in laga soo doorto November xubno Dimuqraadiyiina waxaana degmada sagaalaad oo kaliya ay u reebeen Republikaanka markii hore Dimuqraadiyiintu halkii ay ka ahaayeen 6 hadda 10 ayay noqon doonaan Republikaankuna halkii 5 xubnood laga soo dooran jiray gobolka Virginia hal xubin ayaa laga soo dooran doonaa marka shacabka gobolka Virginia maanta doorashada dhacaysa ha iyo maya yes iyo no ay u kala codeynayaan no hadii yiraahdaan sidii hore ay ahaan doontaa oo 5 xubnood oo Republikaanka waa laga soo dooran doonaa ha hadii ay yiraahdaan 5 xubnood oo Republikaanka hal xubin ayaa ka soo hari doonto oo afarta kala dimuqraadi ayay noqon doonaan marka madaxweyne Trump ayaa bartiisa True Socialka qoraalka ugu soo qoray wuxuu yiri Virginia wareer Virginia maya ugu codeeya wadanka Mareykankana badbaadiye ayuu soo qoray marka sida muuqata Trump waa uu rabaa marka gobol Republicana uu sameynayo in dib u qaabeyn lagu sameeyo degmooyinka oo dimuqraadiyiinta xubnihii laga soo dooran jiray meesha laga saaro oo Republican laga soo doorto laakiin marka dimuqraadiyiintu ay sameynayaan waxa uu leeyahay waa sharci darro dadkan waxa ugu baaqaya inay diidaan marka arrimahaasina waa ay jiraan gobollo kale oo fara badan oo arintaasi ku howlana waa ay jiraan maadaama doorashooyinka hadda ay soo dhow yihiin November doorashooyinka xilliga dhexe oo November 4teeda dhamaadka sanadkan ay dhici doonaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo